بسم الله qaybta labaad ee muuqaalkan wax kaga taaban doonaa waxyaabaha inoo suurtagelin kara qaadashada go'aanada culus waxayna wax yaradan soo koobna muuqaalka waraa kaga hadlay muhiimadda uu go'aanku leeyahay iyo labada qaybood go'aanka inuu mid fudud iyo mid culus yahay sababta fududeedka uu yahay ka fududi iyo sababta culayska uu yahay ka culusi kana waxaan kaga hadli doonaa si yar oo kooban maxay inoo suurtagelin karaa go'aanada aynu malaynayno inay nagu culus yihiin laakiin muhiimka inoo ah ha noqoto waxaan iska daynayno waan inoo fiicneen ama ha noqoto waxaan bilaabayno la imanayno oo inoo wanaagsan maxay inoo suurtagelinaya qaadashadooda inaan qaadano go'aanadaas saddex talaabo ama saddex arrimood arrinta koobaad waxa weeyaan rabitaan inta uu rabitaankaagu yahay waxaas aad doonaysa inaad iska dayso wanaagsan laakiin kugu culus ama aad samaynayso rabitaanku intuu kaa dhab yahay ayay ku xidhantahay go'aankiisu inuu ku fududaado inaad qaadata wax badan oo aan u malaynayno inaan rabno runtii xaqiiqatan rabitaanku xoog maaha ma xoogana laakiin xoogaa qiiro amba saameyn cid kale ku saamaysay amba hadal lagugu celceliyey amba cabsi aad yara dareentay ayuunbaad waxaas aad ugu fikirtay marar badan aad u doonaysaa inaad iska dayso ama aad samayso laakiin dhab ahaan rabitaan xooggan ma jiro hadduu rabitaan xooggan uu jiro oo dhab ah isaga keliga baa kugu fillaan lahaa inaad la timaado go'aankaas ood fuliso tallaabada labaad waxa weeyaan qorshaha in aad realistic noqoto qof xaqiiqada wajaha oo markaad go'aan doonayso inaad samayso wixii aad u arkayso inuu wax dhaqan cusub amba isbedel cusub amba wax culus oo rabta inaad barato inaad caadaysato aad la timaado inay tahay in aad marka hore meel fadhiisato wax qorshayso inaad qorshaha markaad ku jirto su'aalo dhowr aad isweydiiso su'aalahaas waxa weeyaan maxay iga hor istaagi karaa waa maxay caqabadaha iga hor istaagi karaa go'aankan amba hore iigu diiday inaan sameeyo amba imika ii diidi karaa 1 2 3 4 وأنا عقباتها وحي حلو بهانات سو حليسو كهور انت عاد go'aan ka dhaqaaqin waxaad isweydiinaysaa aad qorsheynaysaa waxa weeyaan goorma ayay tahay waxaan inaad samayso bari weegan bishan inaad qorshayso cabir aad qeexdo maalinta aad doonayso inaad samayso oo aanay ka noqonin go'aankan waan sameynaya waan qaadanaya hadii kale wuxuu bay noqon doontaa sidii awal baad ku fikiraysay waxaad ku fikiraysid ku hamiyeyso qorshuhu waxa kamid ah inaad isweydiiso sidee baad doonaysaa waxa inaad u samayso sidee maxaad u baahantahay ma laga yaabaa go'aanka inuu xirfad kaaga baahan yahay xirfad ay tahay inaad barato aqoon ay inaad barato tala in laga yaabaa inaad tahay inaad cid khibrad kaaga leh inaad la tashato waxa kamid ah qorshaha inaad sababta isweydiiso why waxaan doonaya waxaan iska deynaya sababtan iskaga deynaya muxuu yahay waxaan rabaa inaan bilaabo sababtan u bilaabiyo muxuu yahay maxaan u sameynaya damoora markasta oo waxay si weydiiso oo sababtu si fiican kugu muuqato oo markasta iyadana go'aanka ku sahlanaado rabitaankaaga aan qaybta hore ku soo sheegnay talaabada koobaadna uu si xoogaysto way sababtu mar haddii xoogaysato go'aanku ku dhib yaraanaya rabitaankaaga xoogaysanaya talaabada saddexaad ee u dambaysa waxa weeyaan go'aankuna macnihiisu waxa weeyaan goyn wax la goynayo kelmadda asal ahaan ingiriisi af Greek baa asalkeeda macnaheedu waxa wax la goynayo af carabi waa alqaraar alqaadi' Soomaali waa go'aan oo ka timid wax la goynayo marka goyn macnaheedu mar haddii go'aankii la soo gaaray waa ficil wixii la bilaabo la sameynayo macnaha ma oran kartid waxa waan go'aansaday haddana waan sameyn kar waay يعني اسمع قمناش هذه تروح على قف كله وحنا محل سوي إذا تذكر ترى وان قوان صدي وان سكودي لكن وان سمين كروي حتى قوان صدي معني ذو تقول شيء لكن وحويان تلابين كهراء نتكسر قدبين مرة بتان كاجا حوجنين أما قرشها جا ريالستيك هين قرشها جا قيران كسلسنا أم بما تسوق جارين قوان كرسمي جها يعني أنا بحب هذا فعل كلا تماضي marka ficilka marka la timaado go'aanka la soo gaaro laba qaybood ayaa isagana muhiim labadan oo markan go'aanku u qaybsamaya waxa weeyaan inuu yahay go'aan kaaga baahan ku dhac kaliya ku dhac inaad guursato inaad alaab soo iibsato inaad meel guurto wax ku dhac kaaga baahan iyo go'aan dhabar adeeg kaaga baahan وانا runtii go'aanka lagu kala haray muhiimka ah muhiimsan uguna adag waxa weeyaan ka dhabar adeeg kaaga baahan dhabar adeegaas waxa weeyaan
go-aankaaga baahan intood bilowdo inaad joogteyso muddo ku sabarto muddadaasina ay tahay muddadaad waxaa la qabsanayso uu caado kaaga noqonayo dhabar adayg xadiis baa ahaa macnihiisu camal waxaa ugu khayrka badan midka la joogteeyo haba yaraadee joogteynta aad joogteynayso marxalad baad ka gudbaysaa marxaladaasi dhowr bilood bay noqon kartaa wax bil ka badan 2 bilood 3 bilood 4 bilood mar haddaad ka gudubto waxaas wuxuu ku noqonayaa waxaad caadaysato oo la qabsato dheecamada maskaxdaada psychology ahaan baad la qabsanaysaa jir ahaan baad la qabsanaysaa dabeecad ahaan iyo deegaan ahaan baad la qabsanaysaa waxa laga yaabaa wixii inta ka dambeeyo noloshaada ka mid noqdo isku soo duub 3 tallaabo ee inaad qaado si go'aankaaga culus ee muhiimka aad u xaqiijiso ka koobaad waxa weeyaan rabitaan intuu rabitaankaagu yahay ayuu go'aankaaguna ay ku fududahay inaad gaadho 2 qorshaha dhaba ma la timid su'aalo ma isweydiisay goorma sabab sidee halkee maxaan u baahanay maxaa iga hor taagan maxaa dibiga haya su'aalaha ma isweydiisay jawaabo rasmi ma heshay qalan iyo warqad ma qaadatay qorshihii iyo ugu dambeyn oo ah go'aankii hadii la soo gaaray hadduu ku dhac yahay inaad bilowdo go'aanku macnihiisu waa goyn aad ficilka la timaado hadduu dhabar adeeg kaaga baahayna inaad ku sabarto muddada aad caado ka dhiganayso bilaabida shardi uma aha inaad wax weyn ku bilowdo waxa shardi bilaa shardi ah in aad bilowdo waxa doonto aad ku bilowdo ee awoodo sida doonto u bilowdo halka doonto aad ku bilowdo inaad bilowdo xaddi yar talaabo yar ya mahmahan booraha Chinese waxay ahayd safarka dheer wuxuu ka bilowdaa hal talaabo oo la qaado fursaduhu iyaga imanaya mar hadda adigu diyaar garowgii iyo rabitaankii iyo bilowga aad la timid sirtu waa bilaabida aad yar kolba in yar marba qayb iyo inaad ku sabarto kuna dhabar adeegto wabillahi tawfiiq ta muqaalaxiga iskugu imanano mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.